mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland iyo codku ansiyay wax ka bedelaya kaabiska xeerka ururada iyo asxaabtii siyaasadda ee 14/2021 kaasoo maalmihii ugu dambeeyay ay ka doodeen mudanayaasha golaha wakiiladu. Mudanayaasha golaha wakiilada iyo qodob u ansiyay wax ka bedelka iyo kaabista xeerka furista ururada siyaasadda kaasoo oggolaanaya ururada siyaasadda markuu waqtigoodu dhamaado. Xisbida imika jiraan liiskoodu waxa uu dhacay 2022 40 mudanayaal oggolaadeen la ansiyay xeerka waxaana diiday 3 mudane. Xeerkan iyo waxa oggolaanaya in la sameeyo doorasho toos ah taasoo lagu dooranayo ururada siyaasadda lagu dooranayo barnaamijyada sideedkooda iyadoo ay 3 urur ugu sareeya noqon doonaan 3 xisbi qaran ee dalka. Fadhigan waxa dibad joog ka ah oo hoolka aan soo gelin qaar ka mid ah mudanayaasha xisbiga wadani taageersanaa golahaasi. Mudanayaasha ayaa u muuqday kuwo ka biidiiday ansixinta xeerka furista ururada siyaasadda oo qaarkood sheegeen in xildhibaanadu kulmiyadana gaar ka leeyihiin isla markaasina gudoomiyaha golahaasi u xil saaray mudanayaasha kulmiye oo kaliya. deegaanka waad maqasheen iyo qoliga wakiilada May bay la qabanaya waxa markaa soo baxday xeerkii xeer 14 ee deegaanka lagu qaban jiray ururadii marka la furayo ayaa la soo hormariyay sida daraadeed waxa loo baahday maadaama deegaankii la qabanayo 22 waxa soo baxday ururadii 22 ka dhacaysa shahaadadii la siiyay. marka waxa loo baahan yahay in doorasho toos ah ururka iyo xisbigu urur toos ah inay kalaan oo aan diiwaankeeda la socon oo ay ku kalaan magacooda barnaamijkooda iyo shakhsiyaadkooda ay ku kalaan. marka waxa doorashadii iyo ururadii la furayay ba toos laga dhigay deegaankii oo hore loo mariyay mana suurtoobi karto. waxay ahayd deegaanka in dib loo dhigo oo 22 la dhigo golaha wakiiladana hadda la qabto ma suurtoobi karayso in la yiraahdo golihii deegaankii hadii 22 la qabtay in la yiraahdo ururada waxa la furayaa marka golaha deegaanka dambe 5 sano dambe inaynu ururadiina xisbiyadiina ay sii joogaan. marka wuxuu ka dhacayaa waa 22 waxaynu ka gudubnay dib u dhig dambe waxaynu isku raacnay inaan qolona waqtigeedu doorashada la qabto. marka meeshii deegaanku baa toos laga dhigay inta way marka 6 bilood ka hadho shahaadada ayaa la furay baa isbaabulayaan ururadii baa abaabulayaan 6 bilood ka hadhay doorashada madaxweynaha ayaa la qabanayaa tii ururada 3 xisbi ugu sareeya ayaa noqonaya. waxa weeye taasi waa marba waqti badan bay u baahan tahay. waxa weeye 26 waxa sharciga lagu dhaqmayo dalka golahana sameeyay haddaad aragto golaha iyaga qashana waxa sharciga aan sameeynay iyo kuwaanu hadda wadno shuruuc baanu sameeynay waxaana lagu xusuusadana tanaa ka mid noqoto xisaabta ururada la furo waqtigeedu. dadku waxay doonaan iska yiraahdaan annagu meeshan xiiso uga qabno 16 sano aan joogno dhiban intii aan joogay ninkii ilaahay rag badan ma soo gaadhinoo ma ay soo gaadhin haddana qalbi furan waji furan ayaan rabnaa inaan kaga tagno waqtigayagii waxaanu rajaynaynaa golana bedela inuu yimaado oo halka ka sii wada. marka wax aan ka qabnaa ma jirto ninkii nala waa raagtayn waa raagnay duruufaha keenay maantana diyaar waxaan u nahay dawladda noo tirinayeen inaan idin maca salaamayno aan waqtiga qaadan hadii ilaahay